Assalaamu calaykum soo dhawaada waa idin salaamay dhammaantiin meel walba aad joogtaan. Waxaan maanta wadaa waxaa waaye challenge yar oo la igu soo xirtay maasha Allah. Xujo challenge qof walba sida uu garanayo waa fishkan oo la duugayo oo la gubayo haddana waxaan u furayaa xujada walaashay Bushra Cooking and Health sidaan u sameeyay iyo sidaan xujada iskaga furay. Stay tuned daawasho wacan. waa kana fishki halkaan aan ku haystaa asagii oo full oo dhammaystiran waaye wax ka maqan ma leh ya madax ilaa cirib waa is haystaa. halkaan waxaa igu jira spiceski adduunkii sinjibiishii liintii waxyaabihii aan ku sameyn lahaa. dhexdana waa kana waan soo jeexay wasaqdii waa kasoo guray waa soo dhaqay diyaar waaye hadeertaana spiceskan isku dardarsanaya. baaquligana inta ku haystaa waxaan ku shubayaa baaquliga spiceska markaasna wixii aad haysataa isticmaali kartaa dhib ma lahan ya anaad waxaa inta ku haystaa huruud waaye huruudda powderka ah. xawaajiyaal mix oo shiidan hadaa haysid isticmaal. waxaan kaloo hadda ku darayaa garam masala waaye asagana wax yar. spiceska maasha Allah cuntada waxay kasoo saaraan tasty dhadhan aan caadi ahayn. waxaan ku darayaa hadda waxaa waaye black pepper filfil wax yar waaye filfisha kama badinayo ma rabin inuu zaaid u kululaado. waxaan kaloo ku darsanayaa cusbo ya cusbo la'aanteed abaar waaye cunto ma kala socon karto. waa kana cusbadan ku shubayaa. after that cusbada ka bacdi qiyaasta adiga jecesha cusbada ku shubana aan ma ka badin waxaan ku darayaa dhana jira waaye ya spiceska ani noocana isticmaali qofkii raba xawaajiis ku shiidan deg u yaalaan intaan qayb kamid ah hadaa haysatid saa jecesha waxaa haysatid la gab ku sii. inta coriander waaye powder waxa waaye kabsar caleen shiidan waaye xoogan ayadana ku shubayaa. maasha Allah alaabaha markay isku tagtagaan carafan caadi ahayn ay soo daayaan. intaas hadda waxaa ku darayaa intii igu jira waxaa waaye sinjibiil iyo toon aan soo xoqay aan isku daray ginger and garlic paste qofkii u garanayo ama sinjibiil iyo toon xoqan. halkaa waxaan ku haystaa waxaa waaye orange-dana isticmaala orange-da waxay siisaa ayadana maasha Allah caraf tasty adduun lagama hadli karaa idin leeyahay. hal xabaa ku shubanaya. maasha Allah waa cuntada markii lagu daro waxyaabo badan ya vitamin ay siinaysaa caraf ay siinaysaa tasty ay siinaysaa maasha Allah waaye. ani aad aan u jeclahay orange cuntada lagu daro siba markii marination aad sameynaysid chicken hilib whatever aad markaad sameynaysid fish. lindhanana hadda ku darayaa hal xaba ayadana ku darayaa. lindhanaantana maasha Allah ayadana waxay ka jabinaysaa urka oo fishka malayga urkiisa ya way jabinaysaa tastina way siinaysaa. lindhanaantii aan ku miirtay hal xabaan isticmaalay lindhanaanta orange-dana hal xabaan isticmaalay. lindhanaanta intii ugu jirto waxaa waaye hadhow aan shaqo ku qabanaa inta ii ooleysaa dhib ma lahan. inta waxaan ku haystaa olive xoogaa yaraan ku daray olivada qiyaas adi almost half cup ma dhammaan laakiin intaasaan isku walaaqayaa waa isku mix gareynayaa maasha Allah si fiican inay isku dhex galaan aa la rabaa spiceskii saliidii filfisha wax walba sanjabiishii toontii ay isqabsadaan wax waaweyn maanta ma isticmaalayo kabsar iyo waxyaabahaas nool maya. waa kana saanu kusoo baxay spiceskii hadda waa ujeedaan diyaar waaye maasha Allah. waxaan sameynayaa alaabahan iskala qaada fishkiyan soo qaada marmariskan bilaabaya. waa kana fishkii spiceskaygiina waa kana ya maasha Allah. hadeertaana waxaan guda galayaa marmariska. waxaan ka bilaabayaa oo aan rabaa inaan ku shubo marka hore dhexdan wax yar shabshab ku siinayaa. dhexda ujeedaan nadiif waaye waa kasoo guray waa soo hagaajiyay maasha Allah waan soo dhaqay. waa kana dhexdan ku shubayaa. waa socotaa shaqada idin leeyahay waa socotaa ya waa kana waa mamarina waa ku masaajeyna waa ku daliiga waa ku duuga idin leeyahay. leenkaasaan usoo yeelay waa kana leenka sababta ugu soo yeelay usoo jajax mindiyaan jagjag ku sii waxaa waaye marinationka inuu galaan rabaa oo waxyaabahan kilkisha xataa waa la marinaa meel la cafinayo ma laha idin leeyahay ya meelihii aan jajeexay waa kuwana maasha Allah.
dhinaca kale u rogayaa asagana sidoo kale waa ma marinayaa wax aan cafinayo ma leh dhinac la cafinayo ma leh yaa waa kana meelihii aan soo jeexay sababta loo jeexay maxaa waaye marinationka inuu saa u galo yaa uu test yeesho ee gudaha u gasho bahasha caloosh markaa ka gelisid kor aad jeexday ka gelisid dhinac walba aad ka gelisid maasha allah yaa dhinacana hadda uga shubayaa waa ujeedaan weli waxba ma lahan halkan dhegta hoosteeda waaye wax la cafinayo ma la idin afka xataa waa looga shubaa yaa afka xataa waa la cunsiinaa marinationka meel la cafinayo ma lahan everywhere yaa waa kana waa u daliigay maasha allah wax ka dhiman ma lahan dhinac walba koona kasta yaa maasha allah halkan waxaa igu haray xoogaa marination ma daadinayo weel yar ayaan ku shubanaa fridge-kan gashanaa next time markaan rabo inaan wax sameeyo ama marinate gareeyo aan isticmaalaa liintii waatana haddaaya idiin sheegaaye maxaan sameynahay liinta okay waa soo qabanaa dhexdan ka gelinaa yaa waxaan rabaa inay ku dhidhinto ku dhacaanto ku bislaato yaa testiya siinaysaa gudahana urkay ka bi'ina ayadan laftirkeeda waa kana liintii waa ku shubay diyaar waaye wax marination u dhiman ma lahan waxba ma dhimana cabaara meel dhigaa like 1-2 hours ha iska nasto spiceska asaga ha isqabsadaan kabacda isku soo noqonayna waa kana yaa fishkii haddana xirxirkiisaan bilaabaya foil aan halkan ku haystaa foilkii aan soo qabanaa dhab waa korkan ka saaraya hadda waxaa la gelaa qaybtii xirxirka waaye qaybo badanaa dhiman stay tuned ha fogaan waa kana fishkii waa yaraan ugu soo rogayaa hal mar lama ku kuusay qabqab ma ka siinay waxa waaye sidii oo busta camal ama go ya oo kusoo duuga dabada xataa ma laabay ayadoo sideeda foilka korka laga saaraa dabadiisaas oo ahaane ma laga laalaabay labadii dhinacan ka soo laabay madaxii iyo dabada haddana waxaan ka laabooyaa geeskan waaye yaa oo ku dada gab waxaan rabaa dhinac kasta inuu ka qabsado uusan waxba yeelan meel oo macnaha dulduleel iyo something like that aduu ilaahay idmo waa kana shaqadiisa waxaa waaye ma badna waana badan tahay yaa labada dhinacba mana badna waana badanta waa kana dhakab aan ka siiyey yaa si yaroo maasha allah uu kusoo baxay aan usoo laalaabay halkan foil uma daynay mid kalaan ku darayaa waxaan sameynayaa intaan u leexsanaa xoogaa xabadka kalaan soo qabanaa intaan dhiganayaa kii horaan soo qabanaa fishkii ugu daboolnaa dhinacan oo xoogaa furan waa ujeedaan hoosaan marinayaa upside down because ma rabi dhinacaas kor inuu soo aado waa kana haddana waxaan sameynayaa sidii processkii oo kii hore leh sidiina ugu dadayaa yaa koran gab ka soo siinaa dhinacii madaxa waaye dhinacan buuran madaxiyaa ku jiro dhinacan oo caatada ahna dabadiyaa ku jirto waa kana xabada hore way ka fududahay duubitaanka tan dambe maasha allah dhinacana hadda dhakab ku siinaya haddana very easy waay duubitaanka xataa yaa gacanta haday la qabsato waa kana maasha allah dhinac kastaan kasoo duubay xaajiga xataa igu qosla daay markaan duubay wuxuu dhahay kaala adi meel oo bujari oo fish ma u shaqeyn jirto taagan kawaan oo fishka lagu xirxiro ma ka shaqeyn jirtay saan u xiray yaa very funny wallahi maasha allah hadda diyaar waaye qaybta cusbada aan gelaynaa duugowga qaybtiisa halkan waxaan ku haystaa baaquli waaye baaquligan waxaan ku shubayaa cusbadii yaa waxa dhanba challenge-ga meesha u socdo maasha allah cusbadan waaye maaho waa kana cusbadii biyaan ku shubayaa hadeertaan biyaha ma ka badinaay qiyaas yaraan ku shubayaa ilaa iskaga ka imaato waa qasayaa hadda biyihii iyo cusbadan laba nooc oo u samaysan kartaa biyaha ku qasi kartaa hadaa rabtidna ukunta qaybta cad aad ku qasi kartaa ukunta intaa qasti markay xumbayso ukuntaasi cusbadaas isku daree laakiin maba la isdhibaw waa kana saas markuu kuus u noqdo diyaar waay micna yaa gacantaasaan ku leedahay markuu kuusan yahay ready waay haye xoogaa cusbaan soo qaadanaa cusbadii aan qasay waxaan u hoos marinayaa marka hore kor kaliya ma rabin inaan ka saaro kor hoos geesaha madaxa yaa dabada meel kastaan ka saaraa waa kana dhinaca hoosaan u dhigayaa waa marka hore cusbada waa soo dhigay dhinaca hoose waa usoo goglay joodar camal yaa diyaar waayo waa kana dhinacan waxaan sameynayaa hadeertaan
malaaygiyaan soo qaadaa korkaan ka saaraa. Waxaa waaye diyaar. Waa u gogle dhinaca hoos joodari ahaana uga dhigay. Koraa soo hartay ma aho. Waa la huwinaa haddana waa kana. Cusbada halaha dhan asaga leeba ku dhammaaneebo. Maasha Allah. yaa cusbada waxaa waa ayadana caadi ma ah. Itaabsii waay dhakab ee ku dhexee meel walba idin leeyahay. Waa ku dhegay koolla camal. Waa kana waa soo wada saaraya. Ma rabi videogiina idinku dheereeyo markaa dhammeeyo isku soo noqonayna. Waa kana waan soo saaray maasha Allah. Madaxa, dhexda, dabada, geeska, hoos, kor. Wax haray ma laha idin leeyahay. Waa soo duugay asaga dhan. Waa duugan yahay. Wax u dhiman ma lahan. Waan duugay. Meeshaan waxa ku jiro korka hadii laga arko waa la isweydiina. Waa u jeedaan wax scratchna ma lahan oo dildilaac ma lahan because cusbadii iyo biyo si fiican isku qabsadeen. Dhinacan waa kana foil ma muuqdo. Fishna warkiisa iskaba dhaafbo. Waa tegay waa duug mar hore guduhu ku jiraa. Dhinac walba waa idin tusay. Afartiisa gees maasha Allah wuu ku soo baxay si yar oo cajab iigu duugmay. Ovenka diyaar waay wuu ii kulul yahay. Ovenka hadda gelinaya wuxuu ku jirayaa 50 daqiiqo ilaa 1 saac ka bacdina waa ka soo bixinaa. Waa isla arkaynaa soo noqdo. Waa kana malaayga waa ka soo baxay. Waa la soo guurguuranayaa. Waa soo kulul maraa lagu haayaa lama taaban karaa idin leeyahay. Caadi ma ahan kulayl. Waxa ka yeeraa qaaq. Diyaar waaye hadeertaan. Inta waxaan ku haystaa sanitizer-dii waaye. Sanitizer-da hadda ku shushubaya. Without sanitizer ma kala soconaysa xaajada ma. Marka sanitizer-dan ku shushubaya. Qaybta aan ugu jeclahay waa kana ahay marka oo faniga oo maasha Allah. Waa enjoy garaya dabka markaan dab ku siinaay. Waa kana dabkii aan ku shiday. Wax yar sanitizer ku shushuba. I don't know. Waa jeclahay inaan ku shushubo dabkii oo shidan sanitizer yar markaan ku shubo bug soo dhaho. Walaa waa enjoy garaya. Waan ka helaa maasha Allah. Dabka markuu damana waa furaya. Waa kana dabkii waa soo damay hadda waxaan haystaa mindi iyo kal. Hala fura waaye marka qub. Waa kana waa soo qaraacay u jeedaan soo igu soo jajabooyo. Inaan ka bixiyaan rabaa. Fishkii gudaha ku jira meesha cusbadii aan jijibinayaa. Waa kana jabkii koowaad waa soo dhacay. maasha Allah asaga dhan jab is haysto waayo. Aad u adag yahay maasha Allah waa kulul yahay. Lama taaban karaa idin leeyahay. Dhinacana haddana wax yar jag ka siinaya. Si u kala jajabaysaan ba ku haystaa jag le ka siinay waa kala daadanaya. Dhinacaasaan dhigaa. Waa kana asaga dhanba jab u noqday. Xabadan ila fiiriyahay marka waa la is haystaa wuuna fuqay. Xabad weyn oo is haysto kuleel waaya. Xabad weyn oo is haysto waay. Waa kana si aan caadi ahayn ku soo baxday. Cajab. Haddana waxaan sameynayaa waxyaabaha iskala qaada cusbada. Waa iska leexinaa. Gudaha u gudbaynaa malaaygi inaan fiirino siduu ku soo baxay. Waan furaynaa. Waa kana hadeertaan waxaan bilaabayaa inaan fiiqo foilkii malaayga rabaa inaan u gudbo gudaha. Waxaan u dhaarsanay gudaha waay. Inaan isla aragno suu ku soo baxay. Ani foil isticmaalay maasha Allah. Haddana furoogi aan wadaa wali waa fiiqooya. Waa kana. Kulli haddaan hortiina ku fiiqaa videoga idinku dheeraana ilaa 34 u gaaraa sheekada. Marka waxa waaye intii tabartay waa isku keenkeena waa isku jacburiye videoga sidii aan idinku dheereen lahayn. Waa kana foilka waa ka qaaday. I hope so inaad si fiican ugu jeedaan. Foilka ka qaadaya. Qaybtii hoose waa tana. Carafta ka soo baxayso meel orange waa dareemaysaa liintii spiceski maasha Allah. Cajab. Waa kana. Ayar uga fujinaa foilka. Si yar oo simple ah. Very easy waaye maasha Allah. I hope so inaan challenge-gii iska soo fure. Waa soo wada furaa cusbadan ka soo bixinaa isla arkayna. Waa kana alaabtii saanay ku soo baxday cajab. Maasha Allah salarkii, jibsigii, fishkii, chapatiga ama sabaayad annaka waxa way foorno meel la gelin qudaar iyo waxaas ma ku foorneen. Saanaan rabnaa inaan ku cunno qof walba jabkiisa sabaayada ah.
fishkiisa, chipsigiisa, saladkiisa. waxaan u mahadcelinayaa walaashay Bushra Cooking and Health oo igu soo xiratay challenge-gan ama xujadan. I hope so inaan soo furay xujadii masha Allah. anigana waxaan rabaa inaan sii xujaysto oon ku sii xirto challenge-gan walaashay ayadana Ilhan Cooking oo YouTuber ayadana Ilhan. I hope so inaad adigana xujadan kasoo bixi kartid. dhammaan gabdhihii walaalahay oo challenge-ga ay kana isku dayay oo gabarba gabadha kale oo masha Allah YouTuber ay ku sii xiranaysay oo xujada soo furay waan wada daawaday video-yaashina. Very beautiful masha Allah, keep going. Assalamu alaikum wa rahmah.